بسم الله الرحمن الرحيم كل توعنا ونكسن ضوضيال سو dhawaad waxaan idin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Baydhabo oo kacsan iyo shacabkii magaalada oo isaga barakacay kadib hanjabaada tirabeelka ah ee ka soo yeerayso hogaanka maamulka Laftagreen ee haatan ku sugan duleedka magaalada Baydhabo guud ahaan dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay ayaan idin soo gudbin doonaa iyo ciidamadii ugu badnaa oo maanta ku biiray safka Laftagreen haddaba ciidamadan xaggee ka yimaadeen tiradoodu waa imisa gaadiid dagaal noocee ayay wateen faafahinta ayaan idinku soo gudbin doonaa balse marka koowaad soo dhawow muuqaalkan la gare sina shirgare halkan waa Bilan News magaalada Baydhabo oo saacadii la soo dhaafay xaaladeedu ay circiireysay ayaa waxa maanta isaga barakacay boqolaal kala duwan oo shacabka reer Baydhabo kadib markii ay u dulqaadan waayeen weerarada joogtada ah ee magaalada Baydhabo ay la beegsanayaan ciidamada daacadda u ah madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen xogaha aynu helayno ayaa waxa ay muujinayaan in ciidamada Laftagreen saacadii la soo dhaafay ay heleen gurmad xoogan iyo ciidamo aad u fara badan oo gaadiid dagaal ku hubeysan kuwaas oo ku biiray safka Laftagreen ciidamadan ayaa lagu soo warramayaa inay isaga baxeen magaalada Baydhabo isla markaana ay ka mid ahaayeen ciidamadii birmadka ee markaasi maamulka Aadan Madoobe ee Koonfur Galbeed waxaana haatan socdo abaabul xoogan oo ay wadaan ciidamada daacadda waa madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Laftagreen in ay dib markaasi ugu qabsadaan magaalada Baydhabo Aadan Madoobe oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho ayaa isna waxa wadaa abaabul xoogan oo kaga hortagayo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka socda duleedka magaalada Baydhabo waxaana duleedka Baydhabo caawa markaasi la geeyay oo ciidamadii halkaasi ku sugnaa dowladda federaalka iyo birmadka markaasi la geeyay duleedka magaalada Baydhabo kuwaas oo lagu sheegay inay yihiin ciidamo aad u fara badan oo kor u dhaafaya ilaa 2,000 oo askari si ay u difaacaan magaalada oo inta badan ay soo noqnoqdaan weeraro joogto ah oo ka imaanaya ciidamada Cabdicasiis Laftagreen dhawaan ay ahayd markii ciidamada Laftagreen ay gudaha u galeen magaalada Baydhabo oo ay weerar xoogan oo khasaare kala duwan dhaliyay halkaasi ay ka geysteen arrintaas ayaa sababtay in shacabka magaalada haatan cabsi xoogan ay soo fod saarto isla markaana ay isaga barakacaan guud ahaan magaalada Baydhabo xaaladda ayaa ah mid cabsi leh waxaana laga cabsi qabaa caawa ama berri in mar kale ay weerar hubeysan ku qaadaan ciidamada daacadda u ah madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagreen kadib hanjabaado markaasi tirabeel ah oo saacadii la soo dhaafay ay soo dhigeen barahooda bulshada sida wasiirkii amniga ee Koonfur Galbeed haatan taabacsan Laftagreen Xasan Cabdulqaadir iyo sidoo kale afhayeenkii Laftagreen Ugaas Xasan waxaana sheegeen in ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah maamulka Aadan Madoobe